way farabadan yihiin marka bal ka waran heesahaas tii kuugu horreysay oo aad qaadid iyo tan beerkaygaada ku weyn baa kuugu horreysay mise kuwa kale kaga horreeyay iguma horreyn waxa igu horreysay adigu waxaan garanayaa adigu waqtigan dugsiga dhexe dhiganayay heesaan iska samayn jiray oo waxaan jeclaa xataa mataqaanaa dhalinyarada inaan la kaftamo gabar maaragtay hees jawaabi karta oo kaleeto waqtigan telefoon iyo ma jirin waraaqa la isu qori jiray barisamaadkii miidan soo gaarin idinku sheeka ku maqasheen waxa waaye qoraal la isu qori jiray kuwa saaxiibada xataa waxaan jeclaa markii maaragtay aan gobolada iyo markii national service-kii iyo kaleeto markaan aadnay warqad dhan oo la soo qoro inaan ugu jawaabo muxuu ahaa aan ugu jawaabo gabay waan yiraahdo saaxiib gacmaha sare u taagas hawadana salolo saacbada u dhigo salaan ka timi saaxiibka salaan aad warqadii la soo qoray ayaan u jawaabaya ma wiilashii saaxiibaday ahaa marka suugaantu saas ay ahayd adigu dugsiga dhexe ayaa igu horreysay waqtigaas ma xasan kartaa gabadh warqad ku soo qortay niyo gabdhuhu inta badan suugaantooda ma soo shacbixdo kowde inkastoo anigu hadda ka hor arkay waqtigan joogay faafreebkii Soomaaliya gabar samaysay heesa badan oo jacayl ah ilaan suugaantu inta badan waxay ka timaadaa xagga jacaylka iyo dhibaatada qofka ku dhacday iyo qof inta wixii aan heredity ahayn oo dhaxal ahayn wati la yiri hadaan gabayga uurko bukiya arrin ka keenin ama si olol jacayl iyo xanuun kugu idbaareen afku baad kala leedahay arag ma yeeshan